الله تعالى في كتابه العزيز وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في حديث إمام المسلم وإنما بعثت رحمة. weli waxaa inoo socdo majliskii jimcihii hore aynu iskugu nimaanay oo aynu ugu hadalna siiradii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa iyo diinta islaamka sida inoogu soo gaartay iyo juhdiga lagu bixiyey. waxaynu soo qaadanay cahdulmaki xilliga nebiga calayhi salaatu wasalaam magaalada maka uu joogay, diinta iyo dadka muslimiinta ah dhibaatada ay la kulmeen iyo inta nebiga iyo islaamkaba ay u sabreen. maantay fadhigeena waxaynu ku soo qaadanaynaa hadduu eebba idmo cahdulmadani, magaalada madiine markuu tegay nebiga calayhi salaatu wasalaam, halkaasna saldhiga uu ka dhigtay diinta sida ay u fiday ummaddana ay u kala gaartay iyo juhdiga lagu bixiyey. waqtigoo xoogaa waqti naga tegay, inta inoo hartana aad ay yar tahay in sha allahu tacaalaa ilaa inta toddobada ka dhiman ayay waxaynu ku soo koobi doonaa cahdulmadani. sida hore aynu u soo tilmaamnay nebiga calayhi salaatu wasalaam markii lagu dhibay magaalada maaragtay maka, waxaa u yimid qolo ansaarta ka mid ah, wayna la mubaayacoodeen. laba mubaayaco ayayna la galeen. midda koowaad biicatu alcaqabati aluulaa ayaa la odhanayay, ta labaadna biicatu alcaqabati thaaniya. midda koowaad waxay dhacday sannadii 11 ee bicsada nebiga calayhi salaatu wasalaam. 12 nin oo ansaar ahba ayaa nebiga u yimid si qarsooni ah. mubaayaco waxay kula galeen inay diinka u hiili doonaan, ummaddana ay diinka ugu yeeri doonaan, magaaladana madiine ay wakiil uga noqon doonaan. 12kaasi nin waxaa madax looga dhigay safiirkii islaamka magaalada madiinana laga dhigay muscab binu cumeer, saxaabigii la ohan jiray radia allahu tacaala canhu wa canna ajmaciin. muscab binu cumayr wuxuu guda galay magaalada madiine markuu ku laabtay iyo raggiisa inay islaamkii ugu yeedhaan ummaddii, si naxariis ay ku jirta, turid ay ku jirta, inay ummaddii ugu yeedhaan, iyaga inay marka horeeto ku dhaqmaan diinta camalfalkeeda ay ku dadaalaan, sida dadka ay uga dayadaan. ummaddii markay arkeen diintan inay tahay diinu raxma, waxay bilaabeen inay soo galaan koox koox iyo halhal, ilaa sannadii 13 ee bicsada nebiga calayhi salaatu wasalaam oo muscab binu cumeer magaalada maka la yimid mar labaad asigoo wato 70 dad kor u dhaafaya oo muslimiin ah oo ka soo xajiyey magaalada yathriba ama madiina. waxayna mubaayaco qarsooniya ay la galeen nebiga calayhi salaatu wasalaam. ilaa waxaa laga baqayey quraysho baa laga baqayey, qoladaani qurayshi oo dhib badan kufaaru makaa laga cabsanayey. waxaa la hadlay nimankaasi, waxaa la hadlay ee ree ansaar, nebiga adeerkiisa cabbaas ibnu cabdimudallib baa la hadlay. wuxuu yidhi nebigeena moxameda buu yidhi, moxamed binu cabdillaahi agteena wuxuu ku haystaa ilaalo iyo dad garab taagan oo cadowga ka ilaalinayo. ansaarow idinka haddii aad nebiga u gargaaraysaan oo diintiisa magaaladaasi madiine aad ku soo dhowaynaydaan oo cadowgana aad ka ilaalinaysiin, waa sida la rabay, wouna idin raacayaa. laakiin haddii aad khiyaanaysiin oo ballanka aad uga baxeediin oo asigii cadowga aad iskaga dhex bixi doontiin, hadda wuxuu joogaa dadkiisa buu la joogaa, dad baa ilaalinayo. ansaar waxay yidhaahdeen oo mubaayaco ay kula galeen inay ilaali doonaan qof intuu ka nool yahay. sidaas ayaana lagu heshiiyey. magaaladii madiine ayay ku laabteen. nebigana wuxuu u haajiray calayhi salaatu wasalaam sannadii 13 magaaladii madiina. soo dhoweyn ballaaran oo aanan laga sheekee karin baa lagu soo dhoweeyey. markuu madiine uu gelayey, qolo waliba waxay aad u jeclaayeen gurigooda inay geeyaan. qolo waliba hoggaankii hashii oo saarnaay bay ku dhegeen, ilaa markii dambe oo faray inay iska dayaan hashaasi. waa la faray meeshii ay ku degan laheyd. ayuubul ansaari gurigiisa ayayna ku degatay. halkaas ayuu degay nebiga calayhi salaatu wasalaam.
isla markiiba wuxuu aasaasay masjidulqubaa kadib masjidulmadiina ayuu aasaasay oo magaalada maaragta madiina masjidkii buu ka aasaasay dhagxaantii gacantiisuu ku soo gurayay allaahumma ina alcaysha cayshu alaakhira farxam ilansaara waalmuhaajira noolal waa noolashii aakhiro ansaar iyo muhaajiriin u naxariisa asigoo dhahaya ansaarana waxay ugu jawaabeen lain qacadnaa waannabiyu yacmalu ladaaka mina alcamalu lmudallalu bay dhaheen nebigoo shaqaynaya haddii aynu fadhiisanno camalkeeni waa uu buro wuu hallaabay iyagana waxay bilaabeen masaajidkii inay ka dhisaan xujradii iyo qooladii nebiga baa halkaas laga dhisay calayhi salaatu wasalaam halkaas ayuunu deegaan ka yeeshay isla markii wuxuu ku dhaqaaqa tillaabooyinkii ugu horeeyey 3 tillaabo ayuu qaaday islaamkiina uu ku xoojinayo oo maadaama islaamka ay yaryihiin si taageero badana loo helo islaamkana awood oo u yeesho ayuu nebiga calayhi salaatu wasalaam 3 tillaabo ayuu ku dhaqaaqay midda ugu horeysa waxay ahayd waa middaasi masjidka la aasaasay midda labaadna waxay ahayd oo ku dhaqaaqay inuu muslimiinta mu'aakhaad uu sameeyey inuu walaaleeyo ayuu sameeyey nebiga calayhi salaatu wasalaam waa uu walaaleeyey oo wuxuu yidhi qofba qofka kale ansaar iyo muhaajiriin dhexdoodaba walaalo ka dhigay inay isdhexlayaan oo midba midka kale oo nafaqeynayo ansaar muhaajiriin ay nafaqeynayaan midka ana waxaysan ay garab siinayaan sidaas baa marka mawaddo iyo kalkaceel ay ka dhexeeda laysku heliyo meeshaas waxaa ka dhashay asxaab isjecel baa ka dhashay asxaab isjecel ayaa ka dhashay oo ninka waxaa weeyaan weyn wuxuu u naxariisanayaa midka yar ka yarna wuxuu xurmeynayaa ka weyn midka xoogga le wuxuu u naxariisanayaa ka daciifka ka xoolaha lana faqiirka buu taageerayaa kii waxaa weeyaan deegaanka lahayna muhaajirka buu soo dhoweynayaa idan markaasi nin madiine sheeganayo oo ansaari muhaajiriin sokadooda sheegamayaan idan marka dad isjecel oo isku hiilinaya baa meesha ka dhashay nebigana waa uu la dardaarmay calayhi salaatu wasalaam waxyaalihii uu kula dardaarmay waxaana ka mid ahayd in ummatan waaxida la noqdo ummadaha kale sokadooda inaan madiinadaani kiristaan dambe lagu soo dhoweynin ama gaalo dambe lagu soo dhoweynin in bidco ama shay cusub oo aana diinta ka mid ahayna magaaladan madiine aanan lagu soo dhoweynin in qof muslima aana gaal loo dilin inay ummadda hal xubin ay tahay oo kala danqanay oo isku xubin ah hal xubin oo midkood hadduu danqanayo kuwa kale ay la danqanayaan dad walaalaha islaamka oo mideeyey diinta ay midaysay qabiil ousana kala geynaynin caadifo aysana kala geynaynin ayaa meeshaasi ka soo baxay awooddii islaamka sidaas bay marka ku muuqatay waa tillaabtii labaad nebiga calayhi salaatu wasalaam xilligii madiine uu jooga uu qaaday tillaabta saddexaad waxay ahayd magaalada waxaa jooga dad kaloo diimo kale aaminsan yahuud baa joogtay kirishtaan baa ku noolaayeen naftooda waxaa ka imaan karto colaad dagaal baa ka imaan karo si marka bulshadii nabad ay ugu noolaato yahuud 3 qolo ayaa deganaayeen qolo la oran jiray reer banu qaynuqaac iyo qolo la oran jiray reer banu nadiir iyo reer banu qurayda 3daasi marka laba ka mid ah waa qaynuqaac iyo nadiir waxay xulafo la ahaayeen qolada la yidhaahda khasraj qolada kalena ee reer banu quradana osbay waxay la samaysteen isbahaysi ama xulafa 3doodu inuu iskugu keenay ayuu wuxuu yidhi magaaladani waxaan rabnaa in qof waliba ay ku noolaato si nabadgelyo ah mucaahado aynu samaysanno qof waliba diinkiisa inuu xur u yahay oo diinkoodii baa loo nabadgeliyey yahuud iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam meeshaasi waxay ku saxiixdeen oo qalinka ay ku doogeen heshiis oo iskaashi ah in meeshaasi dowlad iskaashiya laga dhiso hal cadow leh haddii lasoo weerarana la wada difaacayo diya haddee timaadana la wada baxsanayo la qaybsanayo in laisnabadgeliyo meeshaasi marka waxaa weeyaan boqortooye islaamka uu hogaaminaya baa magaalada madiine ka dhalatay ra'iiskeeda iyo qaa'idkeedana oo yahay nabiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam markay sidaasi dhacday arrinkaasi waxay marka dhabarjab weyn ku noqotay kufaaru maka waddo kaleeto uma furno dagaalkii meeshaas inay ka sii wadaan mooye ilaa meeshaasi waxaa ka dhalata dad isbahaystay oo aanan loo dhowaa karin idan marka waxaa ka sheekeynayo ninkii la oran jiray cabdullaahi ibnu salaam ee waxaa weeyaan yahuudda ka mid ahay xilligii hore wuxuu yidhi waxaan u imid muxamed baan u imid oo yidhi ama nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxa dadka uu sheegaya baan dhegaystay hadalladii isoo jiita waxaa ka mid ahay yaa ayuha annaasu afshuu assalaama wa atcimuu aطcaama
wasiluu alarxaama wasalluu billeyli waannaasu niyaamun tadkhuluu aljannata bisalaamin sida asxaabu sunan qaarkood ay warinayaan ummaddiiba wuxuu kula khidaabayaa dadoo salaamta dhexdiina faafiya si aad isku jeclaataan masaakiintana quudiya dadka gaajaysan si islaamkii dadka kale ay ugu soo biiraan qaraabadana xiriiriya sida laysku jeclaado oo silatu rixamka badiya habeenkii intay dadka hurdaayaane salaada u istaaga ayuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam jannada ayaa nabadgelyo ku gelaysiine cabdullaahi ibnu salaam wuxuu yidhi inuu nebi yahay sidaas baan ku ogaaday woonu rumeeyo diinta ayuu qaatay yahuud ninkii ugu horeeyo soo islaamay ama ugu magac dheer buu noqday dad yaroo yahuudda ka mid a ayaa soo islaameen sheekadu halkaasi markee mareedo ayay marka kufaaru maka waxay u adkaysa waayeen isbahaysigaas bay u adkaysa waayeen siday uga hortegi lahaayeen bay ku fikiraayeen waddo kaleeto uma furnoo dagaal kuma qaadi karaan mu'aamaraad iyo ikhtiyaalaad bay abaabulayaan qorshe oo maaragtay nebiga lagu dilaya calayhi salaatu wasalaam ayay maleegayeen islaamka lagu dhibaateynayo ayay isku dayeen inay maleegaan waxyaalihii ay soo abaabuleen waxaa ka mid ahay nin ka mid ah kufaaru maka ayaa maalin maalmaha ka mid ah cumeer binu wahbi aljumaxiyu baa la odhan jiray wuxuu la kulmay safwaan ibnu umayata waxayna ku kulmeen kacbada wuxuu yidhi deeman laygu leeyahay iyo carruur maata ah qof ii xanaanaysa ma jirta ma ahaateene waxaan tegi lahay madiino moxamed ayaana soo dili lahay asigoo fursaddaasi ka faa'iidaysanaya safwaan ibnu umayata wuxuu yidhi ciyaalkaada dusha iga saar deemankan anaa kaa magaye dhaqaaji sidaas buu marka magaalada wuxuu ku soo galay maka asigoo hubaysan cumeer ibnu wahbi isla markiiba sid cumar ayaa arkay asiga iyo seeftiisa buu isku duubay nebiga ayaa arkay calayhi salaatu wasalaam wuxuuna ku yidhi arsilhu yaa cumar udnu yaa cumayr sid cumarow sii daay cumeerow adna soo dhowaaw maxaa ku keena buu yidhi aad buu u cabsaday markaas buu wuxuu yidhi wiilkayga oo beder la iga qafaashay ayaan soo raadsaday markaasuu nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi seefta kuugu jirta maxaa waa ilaa hubka wuxuu ka tarjumayaa dagaal markaas buu wuxuu yidhi inuu iska tuuray maxay nugu tarta uu yidhi seeftan dagaalkii beder waati ilmaheennii raggeennii la laayee markaas baa nebigu wuxuu yidhi amaa wax kale u timid mayuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ka warqabay waxyina ugu yimid waxa uu soo abaabulay cumeer baa wuxuu ku yidhi adiga safwaan ibnu umayata ma kulanteen buu yidhi sidaas iyo sidaasna ma ku sheekaysateen maku yidhi ilmahaada anaa kafaalo qaadaya moxamed soo dil markaasuu yidhi nacam halkaasna cumeer ibnu wahbi wuxuu ku yidhi waxaan ogaaday maanta laga bilaabo inaad rasuul ilaahay aad tahay aniga iyo ninka la yidhaahda safwaan cid saddexaad oo meeshaas nagu helida ma jirto ilaahay kuu sheegay iyo adiga baa ku rumeeyey meeshaas ayuu diinta islaamka ku qaatay nebiga calayhi salaatu wasalaam isla markiiba wuxuu yidhi nin nebi naxariis badan ayuu ahaay faqihuu aqaakum fi ddiin wa aqri'uuhu alqur'aan wa adliquu lahu asiirahu walaalkiin diinta fahansiiya qur'aankana u akhriya cuniga ka qafaalana u sii daaya maxbuuskiisana u sii daaya idan marka sidaasi ayaa xoogaay marka qorshooyinkaas nebiga lagu dhibaataynaya calayhi salaatu wasalaam baa jiray islaamkii toosna dagaal looguma qaadaynin asxaabtii marka way cabsadeen waxayna u cabsadeen nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam maadaama uu isla markiiba ka daba yimid nin raba inuu dilo qaarkood waxaa u cunami weeday habeenkii inay seexdaan nebiga calayhi salaatu wasalaam oo loo mu'aamaroonayo dilkiisa la qorsheenayo waxaa soo dhaqaaqa nin saxaabiyo jaliil ah asigoo seeftiisa wato ayuu nebigu u yimid calayhi salaatu wasalaam sida imaamulbukhaari xadiiskiisa uu ku warinayo markaas buu nebiga wuxuu maqlay khashkhashata silaa xubka shanqartiisa man anta buu yidhi yaa tahay markaas buu wuxuu yidhi sacdu bnu abi waqaas baan ahay waa saxaabigaas jaliilka ah saacaddaani maxaa ku keena uu ku yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam rasuul allow adiga ayaan kuu baqay in wax lagu gaarsiiyo waxaana gurigayga iyo reerkayga uga soo tegay inaa ku ilaaliyo diwaala leyli walayaali
caawa iyo habeenadoo dhanba inaa ku ilaaliyo ayaan u soo baxuu yidhi nebiga baa u duceeyey calayhi salaatu wasalaam sidaas ayuu waardiyihiisa khaaskiisa uu ku noqday markii lagu soo dejiyey wallaahu yacsimukum min annaas ilaah baa dadka kaa ilaalinayo ayuu nebiga wuxuu iska fasaxay ilaaladiisa yaa ayuha annaasu insarifuu cannii faqad casamaniya allaahu caza wajalla dadow iga tagoo iska dhaqaaqa ilaahay waa ilaaliyey qof cid wax igaarsiin doonta ma jirto meeshaasi marka cadow waxaa jira daakhiliya iyo mid khaarijiya baa jiray oo islaamka dhibsanayay midka daakhiliga oo gudaha waxaa ugu weyn kufaartii ayaa ugu weyn oo meesha joogeen waxaa kaloo ka mid a yuhuudda oo mubaayacada la gashay qalbiga bay nebiga ka dhibsanayeen calayhi salaatu wasalaam waxay samaynayeen tashwiishaad iyo dacaayaad islaamka ka dhan ah nebiga bay caynayeen hadday ay fursad helaana ma aysana dhaafi jirin cabdullaahi ibnu ubay ninka la yidhaahdo ibnu saluul ra'sulmunaafiqiina wuxuu ka mid ahaa dadka markii in laga awood batay oo arkay ilaa awal hoggaamiye ayuu ahay khasrajna ansaarna diintii ay qaadatay wuxuu is yidhi magacaada siduusan u dhicin karaamada aada u beelin diinta islaamka qiro si hoggaankaadii uu kugu sii socdo nin la adeecaad ku noqotid sidaas buu marka diintii inuu u galay ayuu dadkii xoogaa tashwiish oo ku furayey ducafada oo iimaankooda oo yar yahay aad bay u dhibayeen nebiga calayhi salaatu wasalaam dadka gudaha joogo dibadda cadowga ka imaanayane asna lama sii koobi karo ilaa markii dambeetaba yuhuuddi ay bilaabaan islaamka inay aflagaadeeyaan oo waddooyinka ay ku tuuriyeeyaan meeshaasi waxaa ka bilaabatay cadaawtinimo dhex martay asxaabta iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam oo dhinaca iyo yuhuuddi magaalada joogeen madiina reer bani qaynuqaac waxa ay sameeyeen uguna foolxumo badan waxay ahayd ballankii oo la gala nebiga calayhi salaatu wasalaam waa ay buriyeen ilaa yuhuud ballan ma lahan ballan haddii lala galo ma ilaaliyaan ilaa wakhtiga aan joogno waa sidaasi lagama sheekee karo idan marka ballanka waxay ku buriyeen gabar muslima oo suuqa madiine timid ayay inay ku qoqosleen bay maradii ay ka feedeen markaas baa nin saxaabiya inuu adkaysan waayey ayuu ninkii bowseef qoorta uga jara marada ka feeday ninkii bay inay isugu tageen bay dileen nebiga baa la gaarsiiyey calayhi salaatu wasalaam isla markiiba nebiga ciidan inuu diyaarsaday oo guryahooda ay isku soo xidheen ayay markii dambeeta isi soo dhiibeen waxaa kala hadlay dadkii isbahaysiga ay ahaayeen baa kala hadlay oo munaafiqiinta qaarkood waxaana la yidhi isaga baxa magaalada madiina oo haajira wayna isaga tageen magaalada madiina laba qolo ayaa ku soo hartay reer banu nadiir iyo qolo kaleoo la yidhaahdo reer banu qurayda iyagana meeshaasi ayay dhibka ay ka sii wadeen idan marka waxaa dhacday in xataa nebiga markii loo dhowaawaya calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisa la isku dayo hal iyo labo iyo jamaaco in si gaadma ah loo dilo iyo si khiyaano ah loo dilo dhibaatooyinka islaamka loo geystay oo midda ugu xanuunka badneed waxaa ka mid ahay bi'ru macuunata baa ka mid ahayd niman quraa ah oo qaari'iinta asxaabta ee culammadii asxaabta ee diinta yaqaanay ayaa meeshaasi dhibaato weyn loogu geystay muslimiintana xanuujiday markii qolo ka yimaadeen magaalada najda ee caasimadda riyaad ee hadda maaragta loo yaqaano riyaad oo nebiga u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam bay waxay dhaheen rasuul allah waxaa nugu dartaa dadkeena diinta baro nebiga waa owaaniyo wuxuu yidhi dadkiina waa dhagar badiyihiine amay asxaabteeda wax gaarsiiyaan annagaa ilaalinayna bay dhaheen nebiga waa uu ku dara calayhi salaatu wasalaam 70 nin bay gaarayeen oo la yidhaahdo quraa'ul wa akhyaaru wa saadaatu saxaaba raggii ugu akhyaarsana asxaabta ugu qur-aanka akhriska badnaay mar alla markay gaareen bi'rulmacuuna si dhagar ah ayaa maaragtay duulaan loogu soo qaaday ilaa midkii ugu dambeeyey meeshaasi looga dilay camru bnu ubayata unbaa ka badbaaday الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. siiradii nabiga calayhi salaatu wasalaam halkaas haddii aynu ka sii ambaqaadno waxaa ka badbaaday akhyaartaasi saxaabada ee bi'rulmacuuna lagu xasuuqay camru bnu umayata saxaabigii la odhan jiray oo markaasi madiine u soo cararay geed ayuu harsaday laba nin ayuu la kulmay asigoo moodaya inay ka tarsi yihiin qoladii saaxiibbadiisa laayey ayuu si kadiisa u dilay markuu nabiga u sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi nimanka aad dishay waa reer banu kilaab bay ka tirsanaayeen heshiis iyo ballan baa naga dhexeeya in aan isnabadgelinno laakiin diyo ayaan ka bixinayaa sida nabiga calayhi salaatu wasalaam heshiiska hore ahlu madiine oo la galay yahuuddana in diyada la qaybsado bay ahayd nimankaa la yidhaha yahuuddana waa lagu yaqaanaa khiyaanada iyo ballanka bixidda waa lagu yaqaanaa wuxuu u tegay qoladii la odhan jiray reer banu nadiir asigoo wata siid cumar iyo siid abubakar nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu u sheegay sida wax u dhaceen inuu diyo raadinayo waxay yidhaahdeen diyadaada waa aynu ku siinaynaa inoo fadhiiso isla markiiba waa ay tashteenoo waxay yidhaahdeen maanta gacan ayaynu ku haynaa gurigeena ayuu inoo soo galay moxamed waa inaan ka takhallusno laakiin waxay og yihiin ilaahay inuu ilaalinayo subxaanahu wa tacaala isla markiiba derbi hoostiisa ayay fadhiisiyeen waxayna yidhaahdeen yaa dhagaxaani ku dhufanaya camru bnu jixaash nin la yidhaahdo oo ashqal qoomi ahay ninkaas baa wuxuu yidhi arrinkaas anaa idka tawalinayo ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yidhi wallaahu yacsimuka min annaas ballanqaadkaasoo nabiga siiye calayhi salaatu wasalaam dadka anigaa kaa ilaalinayo jibriil baa soo dego wuxuu yidhi meesha isaga soo tag dilkaada bay qorsheynayaane nebiga waa uu dhaqaajiyey asxaabtiina waa ay ka daba dhaqaajiyeen iyagoo aana ogeyn wax jira madiine markii la isugu tegaba wuxuu iclaamiyey dagaal ka dhan reer banu nadiir ayuu iclaamiyey dagaal ka dhan waxaa warqad u qoray ninkii munaafiqiinta madaxooda ahaa ee cabdullaahi ibnu umaya ile xulafo ayay ahaayeene wuxuu yidhi magaalada madiina yaana laga bixin aniga ayaa idii hiilinayne isla marka nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa waxay ku qaadeen duulaan guryihii ayay isku soo xidheen cunaqabateen maalmo socota markii u adkaysa waayeen ayay nebiga isku dhibeen calayhi salaatu wasalaam waxaana kala hadlay cabdullaahi ibnu ubay baa kala hadlay mawaalideeda iyo xulafadeena iska daay buu yidhi ha baxaane magaalada ha ka baxaane sidaas ayaa reer banu nadiir iyagana lagu haajiriyey guryahoodii inay isaga baxeen waxa uu maaragtay ilmahooda iyo carruurtooda iyo alaabahooda oo oortooda qaadi karta mooye dhulkii iyo beerihiina waa isaga tageen islaamka ayaa dhaxlay oo qaniimaystay meeshaasi waxaa la cirib tiray magaalada madiina laga cirib tiray qoladii labaad ee yahuudda iyo reer banu nadiir ayaa laga suuliyey suuratulxashri oo kaamila ayaa ku soo degatay mid bilowga iyadoo ugu hadlayso sida yahuuddii reer banu nadiir loo buriyey munaafiqiintana meeshaasi lagu ceebeeyey oo ile ballankii waa ay ka baxeene oo qoladaas ma aysan u hiilin axkaamulfe'igina looga hadlay ansaar iyo muhaajiriin ammaantooda iyo siday isku jeclaayeen ilaahay asmaadiisa iyo sifaaddiisa wan wanaagsanna suuradda uu ku soo qatimay subxaanahu wa tacaala halkaasi markay mareedo cadowgii waa uu sii kordhay weliba khaasatan midka bannaanka ah ile kii gudaha waa la daciifiye reer banu qureydo oo aan awood lahayn unbaa meesha ku soo haray cadowgii bannaanka baa marka waxa weeyaan ayaa sii kordhay oo sii xoogaystay yahuudda sida lagu yaqaano khiyaanada iyo hagardaamada iyo abaabulka iyo shirqoolka qoladii la buriyey reer banu nadiir isla markiiba waxay soo abaabuleen dagaal ka dhan ah muslimiinta magaalada madiine joogo waxaynu u tageen qabaa'ilulcarab qurayshay u tageen waxay yidhaahdeen waxaynu isku isbahaysanaynaa sidaan ugu takhallusi lahaynay moxamed iyo asxaabtiisa wayna ka aqbaleen qabiil qabiil reer banu qadafaan iyo reer banu kinaane iyo wahaakadaa jasiiratulcarab dadkii degganaay ayay u wada tageen wayna ka dhaadhiciyeen qorshaha ay ku socdeen waxayna heleen ciidan axsaab la yidhaahdo oo gaaraya 10,000 oo intaasoo mar ku laba jabaarmayo ku 10 jabaarmayo muslimiintii ku noolaayeen magaalada madiina waxayna duulaan ku soo qaadeen magaaladii madiina
ilaahay mooye subxaanahu wa tacaala cid kaloo ka hortegi kartana ma jirto daqiiqadna ku qaadin maysa cagta inay mariyaan islaamka madiina ku nool laakiin muslimiintu samarkooda iyo isku duubnaashadooda iyo iimaankooda xoogga badan iyo ilaahay diintiisa oo ilaalinayo subxaanahu wa tacaala nebiga wuxuu iskugu yeehay asxaabtiisa shir deg dega ayaana la yeeshay waxaana laga soo saaray shirkaasi oona la qaatay taladii uu soo jeediyey salmaanulfarisi oo ah nin iiraaniya iiraan ka soo jeeda wuxuu yidhi haddii annaga cadowga ay naga badan yihiin godad ayaynu qodannaa haddayna la siman yihiinna waynu iska dhicinnaa magaalada madiine baa marka godad lagu wareejiyey meelaha laga soo galo nimankan axsaabne qalbigooda kuma soo dhicin difaacaas inay la kulmi doonaan ma aysana filanaynin magaaladii madiina iyagoo fardahooda la cararaya markay tageen godad waaweyn bay la kulmeen khandaq meeshaasi marka waxaa ka dhalatay ghaswatu khandaq ama ghaswatu alaxsaab muslimiintana meeshaas bay difaac ka galeen gaaladina waxa weeyaan tashwiish bay bilaabeen islaamka ducafadoodana aad bay u cabsanayeen waxaa la arkaya maanta cid badbaadaysa inaysana jirin munaafiqiintana islaamka waxay ku abuurayeen tashwiish iyo kala geen iyo cabsigelin ayay ku abuurayeen ghaswatulaxsaab markii la kulmeen carabtii isbahaysiga magaaladiioo godad waaweyn maaragtay ay horteeda lagu jaray oo fardihii meelay maraan aysana jirin dhowr mar ay isku dayeen ay u suurtaabi weeday meeshaas asxaabtii lagu dhaawac waxaa ka mid aha sacd ibnu mucaad baa ka mid ahay oo dhaawac ka soo gaaray reer banu qurayda oo islaamka gadaal ka jiray oo magaalada madiina maaragtay joogay ayay warqad u qoreen waxay yidhaahdeen dhabarka ka soo jebiya annagana waxaan ka jirnaahe wejiga ayaan ugu aadanahe ballankii bay jeejeexeen iyo warqaddii heshiiska ayay reer banu qurayda ayay jeejeexeen balaayaa ku soo socota gacantooda ay ku saadaalsadeen reer banu qurayda markay heshiiska ka baxeen waxay bilaabeen islaamkii dhabarka inay ka duqeeyaan islaamkana aad bay u samraayeen waxyaalaha islaamka dhiiro gelinaya waxaa ka mid ahay cawaamilu sabri sabarkooda baa awood badnaay iimaankooda oo awood badnaay ilaahay ay rumaysan yihiin subxaanahu wa tacaala inuu u gargaarayo nebi moxamed ay rumaysan yihiin calayhi salaatu wasalaam ilaahaygiisa meel cidlaa inuusan uga tegaynin adduunyadaani inay aakhiro ka dambeeda bay aaminsanaayeen diintaani in ummadihii horeeto lagu dhibay iyo ambiyadihii hore lagu dhiba bay aaminsanaayeen sidaas bay ku samraayeen marka cunaqabateyntii la saaray markii dambeeta ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu suurto geliyey nin ka mid ah qaswad nimankan axsaab nucaym binu mascuud la yidhaahdo inuu islaamkii ku soo biiray oo nebigu u yimid calayhi salaatu wasalaam nebiguna oo yidhi naga kala geey wax alla waxaad ku kala gee kartid oo ku kala diri kartid nucaym binu mascuudna wuxuu isku diray reer binu qurayda iyo axsaabtii carabtii ayuu isku diray wayna ka guureen nimankii axsaabta madiine way isaga tageen iyagoo aana guul gaarin meeshaas buu nabiga yidhi calayhi salaatu wasalaam maanta wixii ka dambeeyo carab annaga ayaana ku duuleyna naguma soo duuli doonaan ilaa iyagoo dhan baa is soo isbahaysteen waxna waa ka qaadi waayeen duulaan dambe miyaa u haray wouna soo laabta nabiga calayhi salaatu wasalaam asigoo weyse qaadanayo duhurka dukanayo ayaa malakul jibriil u yimid awaqadacta salaaxa baa la yidhi hubkii ma dhigtay fa ina almalaa'ikata lam tadaci salaaxa malaa'igta hubka ma aysana dhigin reer banu qurayda wuxuu yidhi magaaladaha laga saara buu yidhi sid jibriil calayhi salaam isla markii nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu iclaamiyey jihaad ka dhan reer banu qurayda in casirka aanan lagu dukan ilaa reer banu qurayda mooye meeshaas baa marka waxaa weeyaan loogu tegey guryaha bay isku soo xidheen kacbu binu asad nin la yidhaahdo oo akhyaar ah oo caqli badan baa la hadlay wuxuu yidhi nimayaho laba mid sameeya tii idii fudud inaa isku dhiibna nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo diintiisa aynu qaadanno nafteenna iyo maalkeenna iyo oolaaddeenna sidayna ugu badbaadaan iyo inaynu dagaalanno oo guryaha aynu ka baxno qofka u dambeeya intana laga dilayo markaas bay labadii talaba waa ay diideen waxay ka doorbideen inay nebiga isku dhiibaan calayhi salaatu wasalaam xukunkiisa sida oo doonaha ka yeelee meeshaasi marka waxaa xulafo la ahay nimankaa reer banu qurayda aws oo indhahooda ku arkeen khasraj xulafadooda in magaalada laga saaray iyagana waxay damcayeen ragga inaanan la laynin magaalada laga saaro bay damcayeen idan markaas bay waxay u tageen nebiga calayhi salaatu wasalaam waa ayna kala hadleen nebiga wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam mu ku kalsoon tihiin sacd binu mucaad nin akhyaaru wuxuu ahay hogaamiye ah laakiin markaasi ku soo dhaawacmay godkii inta lagu jiray haa bay dhaheen ninkaasi wax alla wuxuu ku xugmiyey nimankaani ma qaadanaysin haa bay dhaheen waa la soo wado dameer baa lagu soo qaaday way la hadleen si kastay wax ugu sheegeen iga leexda buu yidhi wou la hadlo wuxuu yidhi wax alla waxaan xugmiyey raalli ma ku tihiin nacan bay dhaheen reer binu quraydo la hadlo waxaan idku xugmiyey raalli ma ku tihiin nacan bay dhaheen
ansaarna nacan bay dhaheen. markaasba wuxuu yidhi waxaan ku xugminayaa in raggooda la laayo ee dumarkooda iyo carruurtoodana la qafaasho. nebiga baa calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi fowqa 7 samaawaati waxyi laga xugmiye baa ku dhawaaqda buu yidhi. meeshaas baa marka waxaa lagu xasuuqay nimankii la ohan jiray reer banu qurayda, hal nin lagama reebin. islaamkana waxay qaniimaysteen ee maalkooda iyo diyaartoodii bay qaniimaysteen. madiina marka waxaa iskugu soo haray islaam iyo munaafiqiin oo ku dhex dhuumanaya, laakiin aana tabar aana haynin. idan marka islaamka marka sidaasi wuxuu ku soo gaaray samar fara badan, juhdi fara badan, rag baa dhiiggooda u hurayay, habeen weliba soo jeeday. nebiga calayhi salaatu wasalaam aad bay asxaabtiisa u jeclaayeen. jaceylka ay jeclaayeen wax laga sheekee kara ma ahan. waa midda aynu marka siiradeena aynu ku soo qaadanayno, maadaama ay nagu soo dhowdahay bishii barakaysneed ee nebiga calayhi salaatu wasalaam oo dhashay 4 maalmood wax ka yarba ay naga xigto. siiradeena marka waxa weeyaan waxaynu xoogga marka insha allahu tacaala ku saari doonaa sida asxaabta nebiga ay u jeclaayeen calayhi salaatu wasalaam iyo mucjizaadkii nebiga ka dhacay calayhi salaatu wasalaam waqtiga inooga haray. nebiga waxay ku arkeen asxaabta maaragta mucjizaad fara badan, waxayna ka jeclaayeen naftooda iyo maalkooda iyo halkooda ayay ka jeclaayeen. waxayna jeclaayeen wax waliba inay barakaystaan oo nebiga calayhi salaatu wasalaam ay ku arkaan qowlan iyo wa ficlanba inay barakaystaan. waa midda aynu barakaysanayno siiradiisa iyo bishii oo dhashay inaynu xusno nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam. markii magaalada madiina sidaasi loo xasiliyey, gaaladina ay jabeen oo duulaan kale aysana soo qaadi karin oo meeshaasi ay ku jabeen, ayaa wuxuu nebiga calayhi salaatu wasalaam riyo ku arkay asigoo soo cimraysanayo oo dawaafayo oo naxrigii samaynayo oo xalqigii samaynayo. maca daalikana ruyadana min alwaxyi bay ka mid tahay. riyada nebiga calayhi salaatu wasalaam waxyiga bay ka mid ahayd. asxaabtiisa buu la wadaagay, markaasi waxay ku yidhaahdeen rasuul allow riyadaasi fasir uma baahnee, ina dhaqaaji ayna soo cimraysanee, cid aynu ka baqayna ma jirtee. meeshaas bay marka cimro ayay ku xirteen, waxayna u dhaqaaqeen maka inay soo cimraystaan, waana xudeybiya weeyaan. idan marka xudeybiya markay magaalada maka afkeeda horeeta ay u dega nabiga calayhi salaatu wasalaam oo hashiisa ay fadhiisato ay dhaqaaqi weyday, ayay waxay yidhaahdeen rasuul allowna dhaqaaji magaalada aan galnee. markaasuu nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ugu jawaabay abraham maroodigiisii allihii xabisay ayaa hashaana xabisa buu yidhi, meeshaan baa lagu xabisay. maka marka ahlu maka waxaa waagu u baryey nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisaboo duulaan ku soo qaaday oo magaaladii ku waabariistaba afkeedaba, dagaalna kama gaarsii karaan. rag bay u direen marka ka warkeeno ayay u direen. curwatu binu mascuud wuxuu la hadla nebiga calayhi salaatu wasalaam. nebigana wuxuu u sheegay inuusana duulaan ahayn oosana dagaal u socon, laakiin cimro beedka ilaahay uu ka soo cimraysanayo asagii asxaabtiisa. curwa marka intuu meeshaasi joogay wuxuu arkay waxyaalo ka yaabiye buu arkay oo indhihiisa uu ku arkay. waxyaalihii uu arkay waxa ugu cajiibka badnaay asxaabta nebiga say u weynaynayeen calayhi salaatu wasalaam, siday u barakaysanayaan nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam. wuxuu indhihiisa saaray barakada nebiga la barakaysanaya calayhi salaatu wasalaam inay xadki dhaaftoba, oo dadkaani asaga sokodiisaba ay dhimanayaan. markaas buu magaaladii maka inuu taga buu warkii gaarsiiyey. wuxuu yidhi waxaan soo arkay niman diyaar u ah moxamed hortiisaba inay dhintaanba, kana go-an tahay dawaafkan inay soo taabtaan. way iswareysteen kufaaru maka, waxay yidhaahdeen dagaal kale hortegi mayna, heshiis aan la galna. sulxulxudeybiya baa meeshaasi lagu kala saxiixday heshiis oo sanadkaani in nebiga asxaabtiisa oo la laabta calayhi salaatu wasalaam, sanada dambena ay soo xajiyaan. meeshaasi marka islaamka waxaa gacantoodii soo gashay magaalada maka, saacadda ay doonaan ay geli karaan, cid ka hortaagana aysana jirin. laakiin nebiga asigoo heshiiska ilaalinayo ayay meeshii inay meeshii maaragtay waxna ku gooraceen kuna xalaaloobeen oo madaxiina xiirteen buu nebiga asxaabtiisa la laabtay calayhi salaatu wasalaam. wax yar marka haddaynu milacsanno qaswatulaxsaab iyo sulxulxudeybiya, mucjizaadkii iyo mucjizaadkii iyo tabarukaadkii dhacay
ee nebiga calayhi salaatu wasalaam ka dhacay asxaabtiisana ay sameeyeen. imaamkii la ohan jiray imaamulbayhaqi kitaabkiisa dalaa'ilu nubuwa markuu ka hadlaya qaswatulaxsaab wuxuu yidhi oo mucjizaadkii dhacay uu ka hadlayay 3 mucjizo buu soo hadal qaaday. midda koowaad midda saxiixeenka buu soo hadal qaaday oo takhiiru dacaam. saxaabigii la ohan jiray jaabir binu cabdillaahi baa wuxuu arkay nabiga calayhi salaatu wasalaam oo calooshiisa isku dhegtay ama dhagxaan ku xidha gaajo aawadeed. markaas buu islaantii inuu u tegaba wuxuu yidhi bal wax diyaari, waxar yaroo guriga joogtay iyo wax yaroo shaciira oo muufo laga dhiga baa la diyaariyey khubsi. waxayna ku tiri nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo labadiisa saaxiibo la tartiib ugu sheeg. jaabir binu cabdillaahi markuu nebigu u yimid calayhi salaatu wasalaam oo warkii oo ku siraystay oo waxar yar iyo wax yaroo shaciiraan diyaariyo oo yidhi asxaabtii dhamuu nebigu u naadiyey calayhi salaatu wasalaam wuxuuna ku yidhi yaa ahla khandaq isku kaalaya, jaabir binu cabdillaahi cunno ayuu noo diyaariye. asigoo aad u yaxyaxaya buu guriga tegay, islaantiina u sheegay. waxay tihi ilaahay rasuulkiisa baa naga ogay, dhaafay tir ha yimaadaan. wuxuu nebiga amray calayhi salaatu wasalaam inaana dheriga dabka laga dejin inta uu ka imaanayo, khubsigana aanan la dubin. wuu ku tufa nebiga calayhi salaatu wasalaam, asxaabtii baa looga gurayey asigoo hilibkii oosana nuqsaamaynin. kimisti baa loo gurayey iyadoo aysana nuqsaamaynin ilaa dadkii kumanaanka ay gaarayaan ay ka dhargaanba. waa mucjiso nebiga calayhi salaatu wasalaam ka dhacday xilligii khandaq. axaadiista saxiixa ay ku taallo, imaamulbayhaqina kitaabkiisa dalaa'ilu nubuwa buu ku soo min guuriyey. mucjisada labaad imaamulbayhaqi kitaabkiisa dalaa'ilu nubuwa uu ku qoro waxay ahayd gabar ansaarta ka mid ah ayaa timir yaroo gacanta ay ku wada bay nebiga calayhi salaatu wasalaam u keentay. markaas buu nebigu wuxuu iskugu yeeray asxaabtii dhan buu iskugu yeeray. waa ay yaabto waxay istiraan wax yaroo gacanta lagu hayo sidee kumanaan u gaaraysaa. nebiga waa uu ku tufay calayhi salaatu wasalaam, mare ayaana lagu shubo oo farqaheeda baa la qabtay. timirtii haddii xabad laga qaadaba xabad baa ku kororto ilaa markii dambeetaba asxaabtii oo dhan ay ka dhargeen, timirtiina ay badatay oo maradii farqaheedii ay ka daadatay. waa xadiis imaamulbayhaqi kitaabkiisa dalaa'ilu nubuwa ku soo min guurinayo, sanadkiisana asigoo iska leeyahay. idan marka waa mucjiso ka dhacda nebiga calayhi salaatu wasalaam, waana baraka. wixii oo ku tufa baa barakoobeen, wixii oo ku tufa baa barakoobeen. mucjisada saddexaad ee kitaabkiisa dalaa'ilu nubuwa uu ku soo min guurinaya imaamulbayhaqi, dhagax weyn bay asxaabtii la kulmeen ay jabi waayeen. nebiga baa garuun loo dhiiba calayhi salaatu wasalaam, hal mar buu ku dhuftay, wou takbiirsada nebiga calayhi salaatu wasalaam. guryihii gadgaduudnaay ee ruum baa arkaya ayuu yidhi. mar labaad buu ku dhuftay diyaartii ee waxa weeyaan ahwaas iyo waxaan arkayaa furus buu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam. mar saddexaad ayuu ku dhuftay albaabkii sanca ayaa ii muuqduu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam ee yeman. taasoo micnaheeda ay tahay inay ruum iyo furus iyo yeman ay gacanta nebiga iyo islaamka u soo gashay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam. idan marka meeshaasi mucjizaad waaweyn baa ka dhacay oo nebiga lagu xoojinayo, asxaabtuna indhahooda ay ku arkeen. sulxulxudeybiya haddaynu u soo laabanno, 3 ayuu soo qaatay imaamulbayhaqi kitaabkiisa dalaa'ilu nubuwa asigoo ka soo min guurinaya qaarkood kutubta axaadiista ee saxiixa ah. xadiiskii imaamulbukhaari buu soo qaatay. xadiiskaasi wuxuu ahay markii nebiga calayhi salaatu wasalaam sulxulxudeybiya oo dhacay, curwatu binu mascuud indhihiisa wuxuu ku arkay asxaabtii oo weysaqaadka nebiga calayhi salaatu wasalaam gacmaha u dhiganayo. wejiga ma dhaqo ilaa nin saxaabi biyahaasi gacantiisa bay biyihii ay ku dhacayaan. gacmaha ma meero ilaa nin baa gacantii u dhiganayo. lugihii ma dhaqo ilaa nin baa gacanta u dhiganayo. markaas bay jirkooda inay mariyaan oo cabaana weelasha ay ku maaragta ku shubanayeen. nebiga calayhi salaatu wasalaam waa arkayey. waa tabaruku nabiyi sala allahu calayhi wasalam. nebiga baa la barakaysanayaa, cid isku khilaafsan ma jirto. bukhaari buu xadiiskaas ku qoran yahay. mucjizada labaad oo arkay oo ka yaabisa waxay ahayd nebiga calayhi salaatu wasalaam xilligaasi tinta buu xiirtay. tintii isla markiiba asxaabtii baa loo qaybinayaa, 1 iyo 2 iyo 3 bay u kala qaadanayaan. nin waliba marka wuxuu gashada jeebka iyo maradiisa iyo warqadiisa buu ku duubtay. maxay ula jeedaan?
tabaruka binnabiyi sala allahu calayhi wasalam aahaarta nabiga inay barakaystaan calayhi salaatu wasalaam. hadda waa tinti ilaa qaarkood maaragtay ay u isticmaali jireen dadka markay ka xanuunsan yihiin biyo inay geliyaan oo sidaasi tahliil ahaan qofka jiran loo siiyo oona ku caafimaadayo. jihaadka markay galayaan koofida bay suro jireen, jihaadkaasi loogama soo adkaado. xaajo weliba ay leeyihiin tintaas bay qaadan jireen, wayna ku soo guulaysan jireen asxaabta radia allahu tacaala canhum wa cannaa. imaamulbayhaqi wuxuu ku soo gebagabeeyey aahaartii iyo tabarugii xilligaasi la arkay iyo mucjizaadka nabiga calayhi salaatu wasalaam. curwatu binu zubayr saxaabigii la odhan jiray ayaa wuxuu leeyahay biyihii badnaay ahlu maka baa naga xigsadeen, ceel yar baa feel loo galay oo dadkii aana kala gaari karin. markaas bay dadkii way oomeen, aad bay u dhibtoodeen, nebiga bay u dacwoodeen calayhi salaatu wasalaam. nebiga baa wuxuu yidhi ceelkii ha la igeeyo, markaas buu candhuuf ku tufay nebiga calayhi salaatu wasalaam. ceelkii biyihiisa baa waxay yimaadeen bannaanka, nin naga mida ma jirin ilaa asigoo fadhiyo bou sacab darsanaya buu yidhi curwatu binu zubayr radia allahu tacaala canhu wa canna. waa barakada nebiga calayhi salaatu wasalaam, candhuufi meeshaas oo ku tufay. idan marka wax waliba oo nebi uga dhaca mucjiza, weli ilaahayna karaamo ayay uga dhacaan. intaas aynu sheegno ooliyada ilaahayna waa looga barakaysanayaa. nebiga calayhi salaatu wasalaam fi lxayaati wa bacda almamaati ummaddiisa waa anfacayey, barakadiisana waa anfaceeda nebiga calayhi salaatu wasalaam. waxyaalaha bacda almamaati la arka waxaa ka mid ahaay sheekhii la odhan jiray alxaafidu dahabi kitaabkiisa siyaru laclaami nubala iyo kitaabkiisa macrifatu lquraa'i alkibaar fi dabaqaati walacsaar, markuu ka taariikheynaya naafic qaari'aas ee min quraa'i sabca ka mid ah, afkiisa waxaa ka soo bixi jira miska iyo udug ah ka soo bixi jira naafic. markaas baa la weydiiyo waxaa la yidhi afkaada muxuu u carfayaa mar walibo? naafic wuxuu yidhi waxaa riyada ku arka nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam, wuxuuna yidhi afka kala qaad, waan kala qaada, nebiga baa igu tufay, waxa iga soo udgaya waa candhuufta nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam buu yidhi. waa bacda almamaat, nebiga markuu ifka ka tegey kadib sidaasuu ummaddiisa u anfacayey. xaafidkii la odhan jiray imaamu nawowi kitaabkiisa tahdiibu alasmaa'i wallugaat, markuu imaamu shaafici uu ka taariikheynaya wuxuu leeyahay imaamu shaafici baa wuxuu riyo ku arkay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam. markaas buu nebigu wuxuu yidhi maa dadka la hadashid, rasuul allah fusaxaau lbaqdaad sidee ula hadlayaa, carabkeyga xoogaa cajami baa ku jire. nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa afka uga tufay, markaas buu yidhi dadka la hadal. afsaxu lcarab fii zamaanihi ayuu noqday. dad iska daya culamaau luqa waxay ku tilmaamaa imaamu shaafici muwalladiinta luqadooda la deliishado inuu ka mid yahay, dadka kalena gabaygooda aanan la deliisho karin ee la sabantamay imaamu shaafici. carabtii hore baa lagu tiriyaa luqadiisa, ilaa nebiga baa ku candhuuf ugu tufa afka calayhi salaatu wasalaam. bacda mamaatihi buu anfacay. qisada aynu ku soo gebagabaynayno ibnu xajar khaatimatu lmuxaqiqiina ibnu xajar alhaytami kitaabkiisa fataawi xadiifiya asigoo ka soo guurinayo imaamkii weynaa ibnu mulqin kitaabkiisa dabaqaat lawliyaa, wuxuu leeyahay sheekhii weynaay ee qudbul maaragtay wujuud algawth alacdam asheekh cabduqaadir aljiilaani, sheekhaas weynka amadana allahu bimadadihi wa nafacanaa biculuumihi. sheekh cabduqaadir jiilaani baa wuxuu riyo ku arkay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam. markaas baa nebiga wuxuu yidhi ummadda miyaad diinta u sheegtid, ummadda maa diinta u sheegtid oo ummadda aada anfacdid? rasuul allah wuxuu yidhi oo asigoo weliba ka cudur daaranayo maxaa sheegaahuu yidhi oo aan ku hadlaa? markaasuu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam afka kala qaad, candhuuf buu ugu tufay. isla markii xilli duhura buu masaajidkii ka istaagay ee baqdaad, ummaddii magaalada joogto dhan waa isku yimaadeen, ilaa markii dambe sheekhaasi magaciisa qof garanayda aysana jirin. sheekh cabduqaadir aljiilaani nafacana allaahu bihi fi dunya walaakhira. nebiga calayhi salaatu wasalaam fi lxayaati wa bacda almamaati sidaas buu ummaddiisa u anfacayey. idan marka asna dadkii waxa weeyaan oo ooliyada ilaahay iyagana sidaas bay u anfacayaan fi lxayaati wa bacda almamaat. laa siyamaa sheekh cabduqaadir jiilaani nebiga baa ku tufa calayhi salaatu wasalaam. qofkii ictiqaadan qalbi nadiif ah magaciisa wax ku warsado ilaahay subxaanahu wa tacaala xaajadiisa waa gudayaa, sida nebi moxamed calayhi salaatu wasalaamba qofkii wax ku warsada xaajadiisa loo gudayey.
waqtiga oo ina hayo aawadeed in sha allahu tacaala halkaani waxaynu ku soo gebagabeynaynaa siiradii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam cahdulmadani iyo diinta siday nugu soo gaartay in sha allahu tacaala fadhiyo kale waynu isku arki doonaa bishii mawliidka ee barakaysanna waa nugu soo socotaa annagana waxay sidaas u barakaysan doonaa bisha mawliidka ee nebiga u dhashay calayhi salaatu wasalaam inaan nafci adduun iyo aakhire aynu ka helno oo aynu xusno salliga nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam aynu badinno xuskiisa iyo maxabadiisa iyo jaceylkiisa aynu badinno wax walibo aynu ku taageeri karna maxabada nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam aynu ku taageerno bishaasna soo dhoweynteeda aynu ka qayb qaadano dhammaanteen in sha allahu tacaala aquulu qowlii hada wa astaqfiru llah lii walakum wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala